kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka xogwaran waxaanu xog idinka haynaa ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo la sheegay inay xildhibaanada dowladda Soomaaliya ay rabaan in ay mooshin ka keenaan kaas oo ay la damacsan yihiin ra-iisul wasaaraha in gabi ahaanba xilka laga qaado ama ay dhaafiyaan xilka ra-iisul wasaare. mooshinkan ayaa haddaba dadku siyaabo kala duwan uga falcelinayaan waxaana isweydiinayaan meesha laga soo mareegay mooshinkan xilligan kusoo beegmay iyadoo aynu la socono tan iyo intii uu dalka qabtay madaxweynaha tobnaad Xasan Sheekh Maxamuud oo noqonay madaxweynihii koobaad ee mar labaad ama laba jeer qabtay xilka madaxweynenimo ee dalka inuu duulaan ku qaaday al-shabaab meelihii haysatay isla markaana dalku uu galay dib u xoreyn meelo badanna laga qabsaday qolyahan al-shabaab ee nabadiida. haddaba ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo noqonaya ra-iisul wasaarihii 23aad intii ay 10 madaxweyne hayeen dalka Soomaaliya ayaa muddada uu xilka hayay ay tahay 10 bilood. bishii June ee sanadii tagay ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka Xamse Barre Cabdi. mooshinkan imika ay rabaan xildhibaanadu ayaa la leeyahay waxa qayb ka ah maamul goboleedada dabcan uu haybahan ka soo jeedo amaba uu kursiga ku matalo ra-iisul wasaaraha ee Puntland iyo Jubaland. Cabdiraxmaan Afagaadha ayaa garabkayga fadhiya alana barnaamijka kala qayb qaata. Cabdiraxmaan soo dhaw bal mooshinka ra-iisul wasaaraha maxaan kala soconaa? bismillaahir rahmaanir rahiim. waan dhaway Cabdiraxmaan Muxidiin adiga iyo daawadayaashana waan salaamayaa. waan ka qaadan bacd salaan mooshinkan ka dhanka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waa dhawaanahanba uu isa soo tareeyay tiraka laba jeer buu soo shacbaxay oo inay ra-iisul wasaaraha laga wado mooshin oo qolyo xildhibaano oo is urursaday ay ka wadaan. tiraka labada jeer waxa u dambeysay hadda oo maanta yani waxa soo dhawaaday baad moodaa fadhigii baarlamaanka baarlamaanku uu xidhan yahay hadda fadhigiisa May 22keeda yaa ugu horeysa marka mar walba oo uu soo dhawaado mooshinkuna uu sii tarayaa. baarlamaanka waa la fasaxaa waa la kala diraa marka fasax bay ku jireen markii hawlo iyo jiraan waayo xismaan kacdoon marka waxa jira mooshin ah oo xilliga fadhigooda in lagu soo beegal rabo xildhibaano marka 50 iyo dhowr gaadhay ya hawshan inay wadeen ay soo ifbaxday loo soo waxaysmay waliba waqti xaadirkan hadda la soo shaaciyay ra-iisul wasaarihii uu ka maqan yahay wadanka madaxweynihii waa ka maqan yahay labaduba cimro ay ku maqan yihiin oo waxay bishii barakaysnayd dabayaaqadeediiba ku sugnaayeen magaalada Makka xaramka iyagoo labadiiba maqan yihiin ya haddana waxay sameeyeen inay xildhibaanadii iyo sawaxanka iyo buuqi u soo baxo laba arrimood labadaba way sababtay baalaleeyahay suuqa ku jirta. mid waa mid maamulkan Puntland iyo xildhibaanada ka soo jeeda ku haybta ah madaxweyne Dani taageersan fikirka madaxweyne Dani waxa markii u horeysay soo baxday ma aysan taageerin ama mayna soo dhaweynin ra-iisul wasaare ka soo jeeda Jubaland iyadoo xun iyo sanba Xamse Cabdi Barre waxba aan laga ogaanin buuqaasa soo baxay waxa ku xigay Dani iyo xukuumadii iyo Dani iyo maxaan ku dhahay madaxweynihii inay haddana kala siyaasad noqdeen iyagoo warka hore inay damujidid isla hayeen la ogaa. Dani wuxuu u tartamay madaxweyne hadduu waayay ninka ugu codadka badnaana oo noqday wareegii koobaadna raggii ugu codka badnaa uu ahaa markii aad weydo yani wixii washamsida dambe inuu qayb ka ahaa yaa la filayo ra-iisul wasaaraha isna diyaarsan yahay maadaama haddii Xasan Sheekh يعني كبيلها وحيابها الصومالية قاعدة استعمال شيء 4.5 كلا ده حسن شيخ هدي وهلا مدحوينه إنه يساقو رئيس وزراء النقض كسب حياة كنا حزبية هي ورئيس وزراء ونقون كرو ومد الله بعد هدي دني صواب حنا حسن رئيس وزراء وكده عم قفكوا هاي بتيس أو رجع حسن قوتها تيم ما يندعن حمزة عبد البر وحكاين حسن شيخ محمودة dadka qaarna ay leeyihiin Axmed Madoobe oo isku haybaayeen gudoomiye doorashada uu ahaan jiray yaa wata labadaan nin baa adigu isla u dhaxeeyay Xamse ra-iisul wasaare markuu ku soo baxay
xun iyo sanba isagoon laga warsugin xildhibaanadii Puntland iyo madaxweynahoodii beef bay yidheen maxay ku diidayaan marka yani maba aynan aaminin nin beeshooda ah oo maamul goboleedka Puntland ka baxsan inuu ra'iisul wasaare noqon karo ama uu noqonba waxyaabaha la isla haysiiyo iyo kamid tahay hadda su'aal raxan weyn ama koonfur galbeed oo kale gudoomiyaha baarlamaanka looguma tago iyaga iskale hadday inay tartamaan damcaan ay meel kale u tartamaan kanay waay kaas markay ilaashadaan marka koodi waa inay ilaashadaan ha marka xoolo la kala yeeshay muddo xilalkii reer Puntland ra'iisul wasaare inay iyagu leeyihiin oo dhaxal u yeesheen moodayaan marka ay nimaado beesha ay marka ra'iisul wasaaraha beeshaas yeelato in iyagu leeyihiin ay ka noqdaan oo wixii loo oran jiray sheeg dhaxalkii daarood iyagu ay haystaan bay soo haystaan waa inta sababta kaliya ee soo shacbaxday ee lagu sameeyay hawshaas iyada inta markii laga yimaado Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaaraha laftooda hadda iskuma fiicino xan aba soo baxaysa meel ay iskala qaadeen mooji mucaarad kale waxa jira fara badan oo xoogan oo fartaag iyo jin iyo jaan iyo garab orod iyo wax isku wada huwaday oo baar dheer saldhig ka dhigtay oo Axmed Madoobe lid ku ah Muqdisho xarun oo ay joogaan Muqdishona Hamza jooga halabeen muunan ka adeeganin inay midaas qayb ka tahayna waa la tuhmayaa war kala jiro oo Axmed Madoobe maadaama uu nin Kismaayo haysta yahay nin isaga ku hayb ah oo siyaasadda kaga cad inuu arko ma uu rabana meesha ku jirtaa oo iyadana waa hadalada ugu faraha badan ee marka ma inuu si haysto doonaya meesha Jubaland meesha waa dhaxal buule Axmed dhaxal buule isagoo dhiig iyo dhaawac uu yimid baa leeyahay sida daraadeed Axmed dhiig iyo dhaawac lacag ma helay hadda dhalinyaro noqday Axmed meesha sida laga qaaday inay adkaan doontaan malayn waa markii waxaan malaynayaa waa markii imsaad ee shanaada intuu lixaad toddobaad ku dhawaad ee intuu tartamo uu guuleysto uu guuleysto uu madaxweyne noqdo ee uu wato yani team baa jiray maamul goboleedyo oo dhowr ah Sharif Sakiin Abdul Ali Gaas Allah musta'an ninkii loo oran jiray Xaaf ninkii loo oran jiray sheegeen way fara badnaa waare uu ku jiray waare ha lugta gareen ragii marka noocaas hay faraha badnaa kaliya ka nool Axmed ragii mar hadii la wada bedelay Axmed Madoobe Puntland dabcan dib u xoreyn muna ku sameeyeen oo Jubaland meel badan haysata marka meeshan uu iska haystaa maxaa xal hoo isaga dadkiisu Axmed Madoobe hadii ay suurtagal noqoto hada wuxuu qaaday gulf colaadeed oo gulf ku aadan bu'aale hadii ay dhab tahay marar badan buu intuu direys xidhay u dhaxda ka soo noqday hadii ay dhab tahay oo uu jilib hadii ay dhab noqoto jilib iyo jamaama u qabto iyo bu'aale oo hawshaas uu kaga dhabeeyo oo dagaalka isagoo ku jira bal wixii lagu soo gargaariye taag ciidan lagu soo gargaara uu noqdo inuu hadana meeshan si haysto oo qori afku si haystay noqoni hadii laakiin taasi ay suuroobi weydo niman babar dheer fadhiyo hadda waan qabanaynaa leh nimankan baa marka iyaguna dhaawac la soo galnay caasimadii Jubaland waa baashi waa meeshan ay haysato nimankani hadii marka caasimadii la haysto hadii isagoo caasimada qori afkeed ku qabtana hadii dhaawac aan wateen boorana uu la tagay hadii fartaag iyo nimanka baar dheer ciidanka ku urursanaya ay xagga ka soo galaan iyagu qabtaan kuwaan baa qaadan oo dhaawac baan qabsanay toddobadeedii haysanaya taa marka inta kaga gudubno mooshinkan hadda la wadaa yani Soomaaliya dhaxal waxay u leedahay taariikheed in baa ra'iisul wasaaraha mooshin laga keeno lagu kala yaaco yani hadana kii qoliyo siyaasadda Soomaaliya ay si dhaxgalaan hawshan yani Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu diyaarsan inuu 3 hawlgal oo min 7 bilood qaado 3 hawlgal ee min 7 bilood dhaxdoodana inuu mooshin ka soo baxaynin waa sida leh 7 bilood oo dagaal ah oo wadanka lagu xoreynay marka hadda laga soo noqdo cimrada 7 bilood oo la yiraahdo xasilin oo dhulkii la qabtay lagu xasilinayo 7 bilood oo hanasho la yiraahdo oo maamulo looga dhisayo yani xilli waqti xilaadkoodiiba waa gabagaba marka iyada intaas baarlamaanku miyay ku guuleysanayaan intay fadhistaan inay dagaal ka soo dhacdo mooshin keenaan taas waa su'aal kale intaas miyay ku guuleysanayaan xukuumaddu
inaan wax baarlamaan ayba fadhiisanin miyay ku guuleysan karaan waddanku uu afduubnaado taasna su'aal kale oo la isweydiinay imika maadaama dalku dagaal ku jiro waqti rabadaan imika lagu jiro saa sheegtayna madaxdii ay cumro ku maqan yihiinba maxaa iyaga laftooda sababay markaynu ka nimaadno maamuladan uu matalad ahaan ra-iisul wasaare kasoo jeeday Puntland iyo Jubbaland markaynu ka nimaadno maxaa iyaga laftooda gaar u ah oo ku riixay meesha waa laba qola iska shay baa la leeyahay qola mucaaradada way sii lahayd inuu xaqoodii dhacan yahay oo ra-iisul wasaarahoodii uu dhacan yahay oo waa nimanka Puntland way sii diyaarsanaayeen xukuumadda haddana waxa ka soo yeedhay isku shaandhayn baan samaynaynaa kii wasiiraha kii agaasinaha kii wasiir ku-xigeenaha maareeyaashii ergeyadii gaarka ahaa dhammaantoodba yani raggii xilalka noocaas hayay isku shaandhayn baa la sameyn hadii la yidhahdo xildhibaanay wada ahaayeen qaar badan baa inay saaxada banneeyaan laga yaabaa kuwii isu tuunsanaa inay saaxada banneynayaan oo dhan waxay yidhaheen mar haddii qorshahaas ay xukuumaddii qaadatay mooshin baaba keenaynaa marka mooshinkan labadaa qolo oo isbukushaday hadda niman sahlanna maa markii labadooda la isku daro qoladan mucaaradsaneed ee Puntland ka soo jeeday iyo Soomaalidii 4.5 kii kale oo dhan nin kastoo xil iska waayo oo xukuumadda ku jiray ama inuu helin inuu mucaarad ahaa inuu mucaarad noqdo iyaduna waa laba awoodood oo culculus labada awoodood oo isu tagay yaa leeyahay waxay keenayaan mooshinka labada awoodood haddii ay u suurto gasho inay mooshinka fadhiistaanna biyo u kaban maayaan yani majority inay noqdaan waxba kuma ah xukuumaddu tabtan ay degtay in aan baarlamaanba fadhiisanin oo wadankii dagaal la geliyo oo wadankii haddana xasilin la geliyo oo xilkoodaba ay sidaa ku dhamaystaan miyay tabtaasi suuro geli tabtaan baa lagaga badbaadi karaa nimanka aadan midooba miyuu la qabaa gudoomiyaha baarlamaanka ninkaas waxaa la dhahaa nin meeshuu qabsado ma sii daay madooba waa baarlamaanka ma ogtahay baarlamaanka haddii uu la qaado laakiin waa rug caddaa waa nin siyaasi ah waa nin in badan siyaasadan ku soo dhex jiray baarlamaanka iyo mooshinada iyo yani de waa dhaxalkii reerkiisa ma ogtahay gudoomiyaha baarlamaanku ama nin aan ka fogeyn u baahaya ama isaga hayay marar horena uu soo maray xilligii maxaan ku dhahay la dooranayay Sheekh Shariif gudoomiyaha baarlamaanku isagu marka haddii uu raaco qolada mucaaradka ah oo xildhibaanada mooshinka wada uu raaco ninkaasi waa jug kale oo gaadhay xukuumadda haddii aanu raacin hadda waxaa la sheegayaa inay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynuhu isku xisbi yihiin in ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynuhu uu xoghayn u ahaan jiray xisbigiisa in ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynuhu saaxiiba yihiin in ra-iisul wasaaruhu nin qabow oo iska degan oo maxaan ku dhahay musuq aan lahayn oo dhacdhac aan lahayn oo siyaasadda janno dhacdhac la'aanta miyaa lagu haystaa marka waa qayb ka mid oo aad u weyn Soomaaliya ninkaan dhacdhac lahayn joogi tusbax baa isku dhex rogaya shaqadii noocaas ahayd waxa ayaa la yidhi marka madaxweynaha oo kala tuuritaanka iyo isku tuuritaanka iyo kala diritaanka madaxweynaha haya madaxweynuhu marka waxa lagu leeyahay uu ku dhimanaya ra-iisul wasaaraha inta uu joogo uu la joogi dantiisu ka dhaxarkay waa nin aan inaba ku safaadaynin waa nin aan inaba ku dul shaqaysanayaan ayna isku hor imaanaynin waa sida hadalka loo dhigayo taa marka haddii la yidhaho isku hor dhimanayaan haddii ay madoobe helaan ciidan bay helayaan haddii laakiin madoobe ay lumiyaan jab adag baa soo wajahaya marka waan arkaynaa markuu ninkani ka yimaado xajka marka 24 May la furo baarlamaanka fadhigiisa marka nimankan maxaan ku dhahay labada gruuba ee iswaxaysatay ay iyaguna la yimaadaan mooshinkooda markay dawladuna isku shaandhaynteeda sameysay ee rag fara badan ay saaxada soo gelisay rag fara badan ay weydo intaas oo jawaab ah Jubbaland iyo way foolanaysaa meesha ku dambeynayso Puntland lafteedu afkay taagaysa iyaduna meesha ku dambeynayso waxba wada riman waxaan wada riman iyo sidii ay u xalin lahaayeen Xasan iyo Xamse waanu fadhina marka tooshka siyaasadda ee toddobaadada soo socda wuxuu dul hogan doonaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya marka Soomaaliyana dhaqan ay leedahay jirto markii in yar la joogaba khayriye farmaajo waxay sameeyeen maamul goboleedyada kaligood ma aha xildhibaanay keensadeen moogta maamul goboleedyada iyo xildhibaanadooda yaa qiiq ku fura marka dawladda ama dawladdu dadaadiso waxay noqonaysaa iska fahanta ama waxay noqonaysaa dawlad la dagaalanta oo sidii maxaan ku dhahay khayriye farmaajo ay sameeyeen hal dhumay hal dhaan raacay ka dhigta oo midna intay soo duubtaan muqdisho keena midna eriyo go'doomiya midna balaayo ku sameeya marka waa su'aalo fara badan oo dul taagan siyaasadda Soomaaliya iyo hogaaminteeda aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu Cabdiraxmaan Afagaadho barnaamijka ila falanqeynayay waxaanuna ku qaadaa dhigaynay
mooshin la sheegay in laga keenayo amaba la qorsheynayo in laga keeno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo dabcan imika aan dalka ku sugnayn balse laakiin xagga iyo cumrada ku sugan oo maadaama bishii rabadaan hadda ay dhamaatay isagu markaa isigii madaxweyneha la sheegaya inay cumradii xagga kusugan yihiin xagga ay cibaadeysanayeen. mooshiinadan ma aha kuwii koowaad amaba kii labaad ee soomaaliya, waxaynu inta badan la soconnaa iyadoo laga keenayo ra-iisul wasaaraha amaba madaxweynaha mooshinno aanan ujeedo badan xambaarsanayn, kuwaasoo ay siyaasadda ay la isku diido amaba ay shaksiyaashu markay siyaasadda isku fahmi waayaan ay gudaha ka bilaabaan mucaaradnimada iyagoo ilooba danta guud iyo ta dalkaba, oo dabcan iyagu markaas ma ay qancin kartaa iyo ma isku qanacnayo saaxiibo ma nahay. mooshin ku yar salaysan baa dabcan soomaaliya inta badan waana waxyaabaha dalku weli uu la daalaadhacaye amnigiisana loo xasilin leeyahay, si guudna aada u moodaa inay dhibaatooyinkaasta ay kamid yihiin. barnaamijkan amaba mooshinkan ay xildhibaanadu sheegeen waxyaabaha kasoo kordha dib ayaanu idinkala soo codsiinaynaa haddii eeba ogolaado, base laakiin intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii koobnaa aan ku falanqeynaynay mooshinka dabcan nala damacsanaa ra-iisul wasaaraha dalka meesha uu ku dambeeya iyo waxa ka suurooba, bal dib ayaynu ufiirinaynaa. iyada lafteeda waxaa jirta in isku shaandheyn bay dawladda soo wadaa la leeyahay, gulufkii al-shabaab lagu wadayay dib xoreyntii dalkana meesha kama maqna, balse waxyaabahaas oo dhan maadaama bishii rabadaan ay baxday madaxdaasi markay dalka kusoo laabtaan ba waxay qaadaan aan dhowri doonaa. intaan barnaamijkan kaxiga ku kulmi doono waxaan leedahnaa sidaa iyo nabadgelya.